وإذن سلام يا إخواني وأخواتي. عقدة نفسك ودباته qof ayaa maaragtay ama siyaasi ama nin ku jira arrimaha bulshada ayaa maaragtay wax laga sheegayaa kabacdi dad ayaa waxa u qaadanayaan oo ama adiga ku soo dhaleecaynaya ama waxa qortay ama waxaad ka hadashay u qaadan kara ina qabiil ula jeedid qofku hadduu qabiil uu ka dhashay iyo haddii qof aad wax ka sheegaysid ma ahan inaa qabiil u jeedid inaa qabiil nacabtahay iyo kuma xirna hawsho. qofku markuu arrimaha bulshada ku jiro isaaqaad markuu wasiir yahay madaxweyne yahay siyaasi uu yahay waxyaalaha qaldan uu sameeyo wax waa laga sheegi karaa wax uu ku saxan yahay waa la ammaani karaa qalad hadduu galay haddii wax laga sheego macnaheedu ma ahan in qabiilkeeda loo jeedo oo wax walba oo lasoo qaato loo arko in qabiil laga wado. dhibkan haysa waxa waaye wax kasta waxaan u qaadanaynaa qabiil in qabiil loo jeedo qabiila lagu difaaca qabiil marka qabiilkii wuxuu noqday waxa la yidhaha cuqdatu nafsi ayuu noqday waana dhibaatada maaragtay aan dawo lahayn oo maskaxda ku dhacda.